السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka degdega iska soo daba dhacaya ee ku saabsan dagaalkii lagu qaaday Iran jawaabaha ay bixisay iyo magaalooyin kala duwan oo ka tirsan mandiqada gobolka bariga dhexe oo Siiriga digniinta cabsida uu isqabsaday. dhammaan duulimaadyadii iyo diyaaradihii marayay meelo kala duwan oo ku dhow xuduudaha Ciraaq iyo Iran oo la joojiyay diyaarado waaweyn oo shaqadii joojiyay inay dalalkooda u gudbaan oo ay ka mid tahay Qatar Airways iyo kuwa kale. Iran oo la weeraray, Iran oo iyaduna nagta ka saartay dowladaha kale ah Israa'iil, Kuwait, Bahrain, Qatar ayay jugta ka gelisay. haddaba sidee wax u socdaan diyaaradaha Mareykanku maxay la kulmeen ilaa hadda dagaalka ay ku qaadeen Iran maxay awooda la soo baxday wararka sheegaya inay dhaceen dilal oo madaxda Iran ah maxaa ka jira Iran maxay kaga jawaabtay haddaba qodobadaas ayaynu barnaamijka ku faahfaahineynaa. barnaamijyadeeduna waxay noqon doonaan haddii alla idmo kuwa isxigxiga oo markaa aanu mar walba kusoo gudbin doono akhbaaraadkii iyo wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena aynu kaga hadlayno weerarkii iyo dagaalkii aynu waayadan soo wadnay. waxaan lahayn dagaal soo socdo Iran way hanjabtay, Mareykan wuu hanjabay, dagaalkii waa bilowday, maanta ayuu bilowday. barnaamijkii saakay warbaahinta Israa'iil waxay lahaayeen hadda caawa bilaabanaya, laakiin waaba laga soo hormariyay oo waxa la yiri dagaalka hadda la isku qaaday. haddaba ilaa hadda maxaa dhacay markaan si guud idinkugu warramo oo saacad iyo bar aan dagaalka indhaynayay oo aan wax walba oo laga qoray soo ururiyay. waxaa la sheegayaa dagaalku inuu laba qayb ahaa, Mareykan iyo Israa'iil oo isla socda inay hujuum ka bilaabeen oo Iran ay weerareen, iyo Iran oo markiiba jawaabo kala duwan bixisay. sida ay wax u dhaceen marka sidee wax u dhaceen weerarka soo ku bilowday. weerarka waxa waaye sida caadada ahayd waxay weerareen talisyada ciidamada, xataa murshid al-caam ee aayatullaahiga xafiisyadiisa meelo kala duwan, madaxweynaha meelo badana weerarku ka dhacay. hal mar ayaa waxaa lagu kiciyay Iran 280 diyaaradood ilaa 340 diyaaradood. sida warbaahinta oo reer galbeedka laga soo xiganayo ayaa Iran lagu kiciyay. diyaaradahaasu ilaa hadda hawada Iran ayay qaarkood ku jiraan oo qaraxyo ayaa dhacaya hadda aan idin la hadlayo. laakiin waxa la yaab kale waxa la leeyahay dagaalkii 12 maalmood ma aha kan, waa adag yahay. warbaahinta gudaha Iran waxay sheegeen in diyaaradihii ay jahawareereen weerarka soo qaaday kadib markii la isticmaalay gantaalaha lidka diyaaradaha oo ka halis badan kuwii horay ay ugu ogaayeen meesha. way iska waabiyeen Iraaniyiinta weeraradii cuslaa ee la soo qaaday. warbaahinta markiiba waxay faafisay in la dilay taliyaha ciidamada Iran, laakiin Iran way beenisay. waxaa hadlay mas-uuliyiin uu ku jiro wiilka uu dhalay madaxweynaha wadanka Iran, Bashtiyan ninka la yiraahdo, wiilkiisa ayaa hadlay. wuxuu yiri markan way ku fashilmeen, markan waxay ku fashilmeen in ay iqtiyaalaad ka bilaabaan ama dilal madaxda inay ka bilaabaan. markan way ku fashilmeen, waana la iska caabiyo yiri waa la garaacay. madaxweynuhu wuu bad qabaa, taliyaha ciidamada wuu bad qabaa. wax kasta oo ay Israa'iil warbaahinteedu sheegayaan wax ka jira ma jiraan. hawshu sidaasay ku socotaa. Iran marka weerarka lagu soo qaaday markiiba waxay weerareen
hadda aan idinla hadlayo imaaraadka waxay sheegayaan in gantaalo lagu soo weerar marka waxay weerareen Kuwait waa weerareen saldhigyada Mareykanka waxay weerareen Bahrain waxay weerareen Qatar waxay weerareen Imaaraat intaasay weerareen oo macnaha weerar ay ku qaadeen Iran iyaduna gantaalo Israa'iilna dhanka waqooyiga bariga bartamaha ayaa gantaalo lagu weeraray ilaa hadda marka tafaasiil badan qolo walba jugti soo gaartay wali si rasmi ah ugama hadlayso oo laakiin waxa leeyahay Qatar waxay yiraahdeen gantaalihii nala ku soo weeraray waa ka hortagnay Kuwait waxay leedahay waa ka hortagnay Imaaraadku waxay leeyihiin gantaalaha waa laga hortagay laakiin qiiq fara badan oo saldhigyada Mareykanka ayaa kacaya oo uuro fara badan ayaa meelaha qaar laga soo sheegaya Imaaraadka ayaa isaguna weerarada kamid ah meelaha lagu qaaday oo jugta laga galiyay haddaba dawladaha khaliijka waxay leeyihiin xaq baan u leenahay inaan isdifaacno oo dhulkeena difaacno Iran waxay leedahay annagu idinma soconee nimankana soo weerara u soconaa marka waxa leeyahay sababaha Iran ay markaa u weerarayso maxay tahay markiiba saldhigyada waxay leeyihiin waxaan oofinaynaa ballantii markii hore aan qaadnay oo ahayd meel kasta oo Mareykanka joogo inaan nagta ka saarno waayahay marka ilaa hadda marka xaalku halkaas uu maraya qayb waxa jirta wararkii ugu dambeeyay Iran qoraysa ayaa jirta oo warar badan hadda iska soo daba dhacayaan haddaba qaybtan ayaan u gudbaynaa wax yar kadib waa isku soo noqonaynaa qaybtan ayaan u gudbaynaa wanaagsan asxaabay meel kasta aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena markan waxaan u gudbaynaa wararkii ugu waaweynaa Al Jazeera ay qortay minidkan aan idin hadlay hadda intaan xaysiinta ku kala maqnayn wararkii ugu waaweynaa ayaan idin akhrinayaa haddaba wararkii ugu waaweynaa waxa leeyahay wakaalada wararka AFP ayaa soo sheegaysa qaraxyo waaweyn in laga maqlay caasimadda Sacuudiga ee Riyadh halkaasoo saldhigyada Mareykanka iyo saraakiil Mareykana ay ku sugnaayeen dhanka kale waxa la sheegayaa in qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen magaalada barakaysan ee Qudus halkaasoo la sheegay in sawaariiqda Iran ay ku habsadeen meelo ay dawladda Israa'iil ku lahayd halkaas dhanka kale wakaalada wararka ee Reuters waxay qoraysaa in markaa holac fara badan iyo dab fara badan uu ka kacay magaalada Abu Dhabi ee caasimadda Imaaraadka Carabta dhanka kale waxa la sheegayaa in wasaaradda arrimaha gudaha ee Bahrain ay ku baaqayso muwaadiniinteeda iyo dadka halka degan in ay meelo aamina u cararaan oo ay galaan dhanka kale waxa la sheegayaa warbaahinta Bahrain waxay leedahay qaraxyo waaweyn ayaa dhacaya oo markaa sawaariiqda Iran ayaa saldhigyada Mareykanka ku soo daadanaysa dhanka kale waxa la sheegayaa ciidanka Israa'iil inay iyaguna ka hortageen gantaalo dhanka Iran ka yimid oo Israa'iil ku soo wajahan dhanka kale waxa la sheegayaa mas'uul Iiraani ah telefishinka Al Jazeera la hadlay wuxuu yiri Israa'iil waxa ay diyaar u noqotaa gantaalaha kuwa culus oo mar dhow aanu ku garaaci doono dhanka kale waxa la sheegayaa in weerar cusub uu ka dhacay caasimadda Iran Tehran iyaduna markaa ay gantaalo ku dhaceen Iran waxa ay sheegtay in ay markaa Trump wuxuu yiri Iran waa dawladii ugu horeysay iyadu kaalmaysa waxa uu ku tilmaamay argagixisada caalamiga Reuters waxay dhanka kale qoraysaa mas'uul Iiraani ah inuu sheegay inay Iran diyaar u tahay in ay cagta mariso meel walba oo uu Mareykanka ku sugan yahay haddaba dhanka kale wakaalada wararka ee Reuters waxay sheegayaan mas'uul Iiraani ah in uu markaa isaguna sheegay in ay waxyaabaha socda ay yihiin bilow laakiin dagaalka uu daba dheeraan doono wakaalada wararka ee Iran dhankeeda markii laga eego oo Iiraaniyiintu wararka ay soo saareen waxay leeyihiin wakaalada wararka ee Iran ee Mahar waxay sheegtay in la xiray dhammaan hawada dalkaasi wakaalada wararka ee Iran iyaduna Faris la yiraahdo waxay sheegtay in qaraxyo laga maqlay goobaha nuclearka Iran ee Asafan iyo Kermanshah iyo Karaj
mas-uul maraykana ayaa sheegay in la filayo in duqaymaha iiraan ay ku qaadaan iyaguna saacadaha soo socda ay ballaarin doonaan idaacadda ciidamada israa'iil ayaa iyaduna sheegtay in weeraro ay iiraan soo qaaday laga maqlay qaraxyo waqooyiga israa'iil iyaduna laga maqlay kanaalka 13 ee israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa sheegaya weerarkan inay si wada jira ugu wada jiraan maraykanka iyo israa'iil haddaba la arki doono xaaladdu meesha ku dhamaato way wararkaasuna waa kuwii ugu dambeeyay ee hadda soo dhacay meel la daayo male khaliijka kuwait bahrain qatar imaaraadka sacuudi arabiya kulli jugtaa laga gelinaya inta aan ka ahayn cumaan waa wadankii dhexdhexaadyaha ahaa 6 wadan ee khaliijka 5 wadan jugtaa laga saaray magaalada riyaad hadda warkii soo dhacay ugu dambeeyay ayaa sheegaya kuwait iyo saacada ka hor lagu luqluqday la garaacay imaaraadka abu dhabi dab xoog laha ka kacay leedahay aljazeera marka xaaladdu halkaas mareen dhanka kale maraakiibtii madireen maraakiibtii diyaaradaha ka soo kacay way carareen oo dhanka baxrul arab ilaa badda caskorkaas ayaa la isugu tagay waxa leeyahay iiraan maraakiibteeda dhaqdhaqaaqyo ay ka bilaabeen hormus meesha la leeyahay haddaba marka wararkaas kuwii ugu waaweynaa waaye waa idin soo aruurin doonaa wax yar kadibba waa soo noqon doonaa isha ku hay mar walba channelkayga youtube-ka iyo facebook-ga labadaba akhyaaray wararkaas ayaan idin soo koobay waa isku soo noqon doonaa haddii alla idmo like gareeya oo share gareeya barnaamijka la socda channelkayga xaqiiqda wararka ku salaysan halkan kala soco nabadgelyo